igu xiran oo hawada aan saaxiibada ka nahay waan salaamay salaanta islaamka. maanta waxaan rabaa inaan tusiyo barnaamij platform runtii aan la yaabay. platformkan wuxuu la mid yahay sida YouTube-ka, Facebook-ka, Instagram-ka iyo website-yada kale ayuu la mid yahay. waa website oo asagana Google AdSense ayaa lagu xirtaa. runtii Google AdSense waxa wada ogsoonahay inuu yahay macnaha ay sheegeen barnaamijka YouTuberada lagu leeyahay lacagta adduunka ay sameeyaan lagu leeyahay Google AdSense xayeysiiskaas ayay macnaha lacag ku helaan. okay kan laftirkiisa Google AdSense ayuu macnaha xiriir leeyahay oo lagu xiranaya. marka insha Allah barnaamijkan aan wada aragno Yofan ayaa la yiraahdaa. hadii la heedmo waxaa idin soo dhigayaa insha Allah linki waxaa idin soo dhigayaa description-ka ayaa idin soo dhigayaa insha Allah description-ka idin soo dhigayaa insha Allah. marka bal aan la socono insha Allah. aan laba akoon ayaan leeyahay. runtii akoon macnaha waa ii baasan yahay oo waa la baasay oo xayeysiisaaba ii saaranbo. midna macnaha waxa weeyaan maxay hato waa under view ayuu yahay oo weli macnaha sheeg waxa ka jiro in la fiiriyo oo weli lama soo ogolaanin laakiin codsiga waa dalbad. okay gmail-kayga ayaan kusoo xiray. runtii anaa tusay qaabka isku diiwaan gali doontaan. runtii waa kana barnaamijkiisaan ayuu leeyahay. waa kasa sawir bis ayaa lasoo dhigayaa. akoonkan weli lama soo xayeysiiska looma furin laakiin waan dalbaday xayeysiintii. runtii shuruudaha la iska rabo waxaa kamid ah middan koowaad waxa waaye first things waaye inaad numberkaaga geliso oo numberkaada kooda ayaa kusoo dhacayo. markaa numberkaaga geliso kadibna verified ayaa leedahay. okay midka labaad kana asagaaba kuu saaraa emailkaaga ku sameeyo. marka emailkaada ku sameeyo oo verified ku noqonaa. okay stepka labaad waxa waaye 30 post inaad geliso waaye 30 sawir ayaad gelinaysaa. sawiradana meesha keensanadiin anaa idin sheegi doona insha Allah. okay midda xigto oo afaraad wuxuu leeyahay inta 10,000 oo views ayaa la iska rabaa. 10,000 oo views qaabka la isku sameynaysiin anaa idin sheegi doona insha Allah. qishkeena idin sii doono kadibna markaa dhameyso meeshaas ayaa taaban doontaa request ku soo fuuli doontaa. kadibna waxaa la fiirinayaa waxaa soo geliday sidii macnaha sheegeen waa la check gareynayaa inuu ku jiro baashi sawiro oo macnaha sheegeen aan loo baahnayn iyo copyright waxba laga baarayaa. kadib under view waaye. okay akoonkii kala hadda ay tuso runtii waa kana. okay akoonkan waa ujeedin runtii waxay taalo 49 post ayaa taalo. 49 post ayaa taalo. waxa article la soo qorayaan ma jiraan. runtii laba follow ayuu haystaa. meeshaan hal linki ayaa yaalo. linki waa kana oo akoon kale ana leeyahay waaye. insha Allah akoonkaas kale isla fiirinayna waa midka xayeysiintu ii saaran tahay insha Allah. aan isla aragna hadii la heedmo kan log out ayaan dhigi doonaa. log out markaan yiraahdo waxaan geli doonaa akoonkayga kale ayaa geli doonaa. wax yar ayaan mood idin gelinayaa ama post idin leeyahay si aan akoonkayga kale u xiro. maxaa yeelay gmail-adeedan ayaa banaanka wada imaanayaan. marka iga raali. okay soo laabasho wanaagsan waa raali hada. okay haddana waa kana akoonkayga waa kana sida rasmiga ah. runtii Google AdSense waa idin tusi doonaa insha Allah iyadoo live oo waxba aan laga bedelin oo wax kombiyuutarada waxa noocaas aysan jirin ama fake ah. waa ujeedin. okay waa kana kii data option fara badan ayuu lahaay waa ujeedin. laakiin kan waa kana verified waaye wax kasta. meeshaan Google AdSense review ayuu leeyahay. waxba lama baahno in review la yiraahdo macnaha shay la update gareeyo. okay xayeysiintina ay tuso waaye. waxaan sawiradan ayaa isaga yaala ayagan. kan waxaa taalo ujeedin 79 post ayaa taalo. 12 followers ayuu leeyahay. runtii masha Allah linki ayaa saaran. linkuna waa Telegram-kayga. insha Allah linkigana waxaa idin soo dhigi doonaa description-ka. marka insha Allah warnay idin ku daalin refresh ayaan leeyahay. waxay xayeysiinta ay tusaya hadii la idmo kadibna AdSense ayaa tusi doonaa waqtiga ayaan haayo. okay sawir aan leedahay loo baahan yahay. waa dukaankii iyo macnaha sawir yar oo miskiinka oo lahaa iyo xaafad naga soo horjeeday waxaan sawiray. marka waxyaabaha lagaga baahan yahay inta badan waxa waaye sawiro aan socialka aad ka soo dejido Google ka soo dejido Facebook ka soo dejiso wax noocaas oo kale loo baahno. Google waa soo diidaya AdSense-ga xayeysiinta waa tasaana xayeysiin ay saaran arkaysan
xayeysiin ay saaran ujeedin soo maahan. Okay, soo jeedaan. Okay, meeshan waxaa igu qoran waxa ay tusiyaa AdSense-geeda ka tusi doonaa. meeshan waxaa igu qoran Som 24 ayuu qoran. Okay, insha Allah waxay digeynaya doonaa insha Allah computerka ay tusiyaa in ay aragtiin doonaya insha Allah. Okay, waxaa digey doonaa insha Allah computerka inta ka soo galaabo AdSense-ga inta ka galaa hadii la idmo walow aan refresh dhahay tana way tusi doonaa insha Allah. Okay, Som 24 ayaa ii qornay oo arkeedeen isla Som 24 tan ka tusi doonaa AdSense-gayga. waa ujeedin si live ayaa soo galay xataa idin kama aan qarqarin. waa ujeedin shalay intaas ayuu ii sameeyay maantana waa tana intaas ayuu sameeyay. qaraad iyo shalay marka la isku daro waa 100 lacagtan waa South Africa waaye waa saar macnaha ran ayaa la dhahaa lacagta wadankan waaye 101 ran ay isku dhigantaa adiga waa lacag u dhiganto adiga $5 lacag u dhiganto waaye. marka waxba ay tusidaan cadeynteeda ay tusidaan insha Allah. refresh aan leeyahay refresh aan dhaho. Okay, Som 24 arkaysiin inta ay ka tusaa iyadana insha Allah. Som 24 inta ay ka tusaya waa magacii aad ku arkaysiin. وجدين Som 24 وجدين يوفان Som 24. Okay, aad ayuu mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. marka insha Allah linki waxaa idin soo dhigayaa description-ka insha Allah. Telegram ayaa leenahay, Telegram-keena ku soo biir insha Allah. fiidiyoyaal badan ka soo sameynaya qaabka loo sameysanayo, qaabka views-ka iyo sawirada laga helayo, sawirada oo copyright-ka lahayn qaabka loo helayo, waxyaabahaas oo insha Allah aan ka caawin doono bilaahidmo. Telegram-kana waan soo dhigayaa, WhatsApp-kii waan soo dhigayaa, linkiga Yofan waan soo dhigaa insha Allah. marka waxyaabo fara badan sirra badan qaabka xataa aad traffic badan ku soo booqdo aad ku helaysid xataa waa ka caawinaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. soo dhawaada.